السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين وشيكو عصب oo kamid ah barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee qisooyinka ay inoo soo dirayeen dadka talooyinka na soo weydiista. Waxaan u mahad celinayaa dadka nala wadaagaya qisooyinka ay noloshooda ka soo wajaheen. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadka aqalka u saaxiibka ah ee talooyinkooda ugu deeqa dadka u baahan talada. Dadkuna waa isku wada baahan yahay, ma jiro qof kaligiis isku filan. qof kastaaba waa u baahan yahay talo iyo tusaale. Sheekadan waxa ay soo dirtay gabadh Soomaaliyeed waxaana ay ku bilaabanaysaa sida tan. Abbaay Suleekho ma rabo inaan magacayga sheego, balse waxaan rabaa inaan qisadayda idin la wadaago adiga iyo asxaabta page-kan ku xidhan. waxayna qisadu u dhacday sida tan. aniga oo yar oo dhigta dugsiga dhexe oo markaa aan wax nina la sheekaysan jirin, shukaansina aqoon ahaydna markii iigu horeysay ee aan gabadhnimadayda dareemay, oo wixii ka horeeyay dadba isuma qabin oo waan yaraa oo markaan uun baan dareemay, laakiin weli nin ma baran. waxa dhacday inaan habeenada ka mid ah aan u wareegay xaafad dariskayga ah oo aan gabdhahooda saaxiib nahay, daris isku fiican ahayn. markii aan ka soo noqday xaafadii ayaa waxa iga daba yimid wiilkooda. waa habeenkii iigu horeysay ee aan wiil la istaago ama barto. wiilkii intaanan xaafadayda gaadhin ayuu ila hadlay, wuxuuna iga codsaday inaan istaago oo aan la hadlo. waana istaagay oo waan la hadlay aniga oo aad u cabsanaya oo ka yaaban inay waalidka i arkaan, balse waanu istaagay oo waan wada hadalnay. wuxuu ii sheegay inuu aad ii jecel yahay, isku dugsina dhigano ilaa iyo maalintii uu i arkay oo uu igu arkay iskuulka iyo xaafadda uu i jeclaaday, saa'idna ii jecel yahay, rabana inaan wax la qabto. waan ka yeelay oo waan ka aqbalay. wiilkii in badan ayaan isla soconay. faamilkaygu ma oga inaan nin la sheekaysto oo jeclaaday. xaafadda wiilka ayaan maalintii oo dhan joogi jirnay oo marka uu gobolku dhaco ayaan tegi jiray xaafadayda. wiilku igama shakin jirin oo waxa ay moodi jireen inaan cashar wada akhrisanayno oo waxba ma aysan nooga shaki qabin, maadaama ay xaafaddu ahayd xaafad aan isku fiicnayn, aadna isugu wareegno, gabdhahooda saaxiibana nahay. waxa aan wiilka wada soconaba waxaan maraynaa high school. waxaa dhacday inuu habeen gurigayaga yimid, annaga oo isla fadhina bannaanka ayaa waxaa soo galay aabbahay. aad ayaan u naxnay aniga iyo wiilkii. aabbahay waa uu xanaaqay oo wuu canaantay wiilkii, wuxuuna ku yidhi gurigayga ma imaan kartid, kugumana arki karo gabadhayda. habeenkaas oohin ayaan ku dhammaystay. weliba waalidkay sidaa kagama hadhin wiilkii. intay waalidkii dhalay u tageen ayay ku dhaheen naga ceshada wiilkiina. beriga waxa ay waalidkay lumiyeen hamigaygii iyo himiladaydii, laakiinse saa kagama hadhin wiilkii aan jeclaa ee waan sii wadanay xiriirkayagii. waxaan saa ahaanaba wiilkii waa uu isbedelay. faamilkiisuna waxa ay u qalqaaliyeen gabadh inaabtidiisa oo joogta dibidda. waxa uuna iga codsaday inaan kala hadhno. aniga aad ayaan uga xumaaday una niyad jabay. magaaladii ayaan nacay. waan ka soo tegay magaaladii oo waxaan imid magaalo kale oo waxay waalidkay moodayaan inaan jaamacad soo aaday. magaaladii markaan bilo joogay ayaan maalin isbaranay wiil da'yar oo aad u qurux badan. inaan xiriir la sameeyo ayuu iga codsaday. waan ka aqbalay aniga oo weli dareemaya niyad jabkii. sidii waxaan ahaanaba maalin ayaan suuqa iskaga soo horbaxnay. wiilkii hore ee aan jeclaa aad ayuu ugu farxay, wuxuuna ii sheegay inuu jeclaa inaan maris aragno. ma kula hadli karaa ayuu igu yidhi. haa ayaan idhi, waana wada hadalnay. waxa uu ii sheegay inuu laynkii loo xireeyay ee ay u xiraysay gabadhii lagu daray uu ka gubtay, gabadhiina uu ka noqday, inaan cafiyana uu rabo. waxa kaloo uu iga codsaday inaan xiriirkeennii soo celiyo. aniga markaa waan ka naxay runtii, waana cafiyey, laakiin waxaan ku yidhi xiriirkeennii inuu soo noqdo lagama yaabo. runtii isagoo aad uga xun ayaan ismacasalaameynay. markaana wiil kale ayaan la sheekaystaa oo ma rabin inaan khiyaamo wiilkan, mana jecli inaan khiyaamo qof jecel, balse khiyaamaduba aniga ayay igu socotay. ninka aan la sheekaysanayo wuxuuba ahaa mid raba inuu dabin igu rido oo jacayl beena ayuu ila galay. aniguna wallaahi daacad ayaan u jeclaa oo xitaa ma ihi gabdhaha iyaga oo qof la sheekaysta haddana niman kale la sheekaysta.
weligayna qof ma khiyaamin oo sidii isaga oo iqaba ayaa nimanka kale inaan la sheekaysto aanan jeclaan jirin waxaa dhacday inuu xiriirkii ii gooyay ninkii labaad ee aan jeclaaday anigii waan waalan gaadhay waddo walba waan isku dayay wax walba waan ku fikiray ugu dambeyntii waxaan ku fikiray inaan ka tago waddankaba waan ka soo tegay waxaan imaaday Yurub waddan ka mid ah markaa ayay niyadaydii caadi noqotay wax yar markaan joogay oo aanan weli nin kale baran ayaa waxaa yimid ninkii dambe ee aan waddankaba uga soo tegay habeen ayuu isoo wacay number waddan Yurub ka mid ah oo aanan aqoon ruuxa leh mise waa isagii waxaan ku yiri xageed joogtaa oo yaa numberkayga ku siiyay wuxuu igu jawaabay waddan dariskaaga ah ayaan joogaa dartaa ayaana u imid anigu berigii kuma khiyaami rabin ee arrin ayaa jirtay haddana aan isku soo laabano oo aan wixii hore ilowno waxaan ugu jawaabay wax walba oo ani xaggayga aan ku qabay waan ka cafiyay balse lagama yaabo inaan dib isugu soo laabano haye ayuu igu yiri 2015 ayaa waxaan bartay wiilaan isku magaalo ka nimid ehelna nahay Facebook ayaan iska baranay waxa uu iga codsaday inaan xiriir wada sameeyno waana ka aqbalay wiilku waa wiil naaga badan waxaan ku yiri walaal hadaad qof kale la sheekaysato ii sheeg ha ilugeyn wuxuu igu jawaabay asxaab ayaan nahay ee waxaan la sheekaysto ma jiraan waan aaminay waana ku kalsoonaaday jacayl saa'idaana waan u qaaday waxa uu sheegay inuu aniga mooyee aanu naag kale rabin wuxuuna iga ballan qaaday inuusan weligii qof kale igu doorsanaynin anigii waan aaminay daacadna waan u ahaa jacaylkayga balse wax yar kadib waxaan ku arkay dabeecad kale wiilkii inaanu dan iyo muraad iga lahayn inuusan isoo wicin waan fahmi waayay waxaan ku iri dabeecadan ma aniga ayaad igula dhaqmaysaa mise dadkoo dhan ayaad ku tahay wuxuu igu jawaabay waa dabeecadayda anigii waan jilcay oo wadnahaygii ayaa banaanka jooga oo hadal xun hadduu idhaho meel ayaa igu aysa anigoo arka haddii aan dhaho maxay tahay sidani waxa uu igu jawaabayaa haddaad ku qanacsanayn aan kala tagno inuu wado walba u maray sidii aan uga hadhi lahaa waana ka hadhay hadda inkastoo aan xanuun badan murugo qalbi jab aad u weyn maray alxamdulillaah hadda waan fiicanahay waana ka gudbay balse waxaan go'aan ku gaadhay inaanan nin dambe aaminin oo jeclaanin waayo dunida intaan ku noolaa 3 nin ayaan jacayl dhaba u qaaday wayna igu xumaadeen marka maadaaba uu nasiibkaygii xumaaday oo aan nimankan jeclaaday midna calfan waayay waxaan go'aansaday inaan sheeko dhanba ka baxo midkii ilaahay maalintan xabiyo biyo ahaa uu ii qoray inaan sugo waayo kalsoonidii iyo aaminaadii ayaa iga dhammaatay inkastoo waqtigan hadda la joogo ay jiraan rag badan oo iraba ina jecel laakiin aniga ayaan nafsad u haynin oo aan ku qanacsanayn jacaylkooda waayo noloshii hore ayaa igu qufulan weli abaayo suleekho qisadayda intaa ayaan ku soo koobayaa insha Allah adiga iyo dadka dhageysan doona kilibkan waxaan idinka rajaynayaa talo wanaagsan fikirkiina waa loo baahan yahay suleekho waad mahadsan tahay walaal nagu qaaliya ayaa tahay taladaadana waan u baahanahay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء سوماليات سلامة وان كقاضي مثل مدنا وان كسلاميا runtii aad baan uga xumahay tijaabooyinka mustaqbalkaaga nololeed ee aad samaysay inaad ku guuldareysato laakiin waxaan dhihi karaa ama xaqiiqo ah guuldarradu ma aha intaad wax tijaabiso inaad ku guuldareysato laakiin waxa guuldarro ah inaad ka rajo dhigto isku dayga mustaqbalkaaga nololeed noloshu maaha wax hal mar laba mar ama 3 mar inta la tijaabiyo hadana laga rajo dhigo nolosha adduunka ma jiro qof aan soo kaca kufin ninka lagu magacaabo Thomas waxa uu isku dayay inuu leer ka sameeyo 1000 jeer 999 mar ayuu ku guuldareystay markii kumaad ayuuna ku guuleystay u fiirso wuxuu uu ka gaaray ka waran markuu 3 mar isku dayo hadii uu iska dayn lahaa leerkani ma jiri lahayn haduu jiri lahaana magaciisu kuma qornaan lahayn so the more you try the more you succeed inta u badan ee aad isku daydaa waa inta ugu badan ee aad guuleysanayso marka walaashay qaali ku celceli ayaan ku dhihi lahaa waan ogahay inay xanuun tahay qof aad jeceshahay marka aad weydo xanuunka ka soo gaadhaana uu kugu beerayo cabsi ah inaad mar labaad wax jeclaato laakiin mid samee weliga qofka aad jeclaanayso naftaada ha wada siin waa inaad ka dhigtaa 50-50 boqolkiiba 50 inuu noqon karo mustaqbalkaaga boqolkiiba 50 inuusan noqon karin laakiin ka waran haddii aad siiso boqolkiiba 100
taasi waa wareer weeyaan ma joogtid meelaad ka soo noqoto marka walaashay tijaabi nasiibkaaga mar iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix toona maaha qofku inuu ku niyad jabo inta aad nooshahay noloshu waa imtixaan waa inaad ku socotaa ku dul socotaa oo intaad tijaabin kartaba aad tijaabisaa waxaan rajeynayaa dadka dhageysan doona inay talooyin wanaagsan ku soo gudbin doonaan dhanka commentiga anigana intaas ayaan kaga baxayaa ilaa hadda waan fiicanahay waana ka gudbay balse waxaan go'aan ku gaadhay inaanan nin dambe aaminin oo jeclaanin waayo dunida intaan ku noolaa 3 nin ayaan jacayl dhaba u qaaday wayna igu xumaadeen marka maadaaba uu nasiibkaygii xumaaday oo aan nimankan jeclaaday midna calfan waayay waxaan go'aansaday inaan sheeko dhanba ka baxo midkii ilaahay maalintan xabiyo biyo ahaa uu ii qoray inaan sugo waayo kalsoonidii iyo aaminaadii ayaa iga dhamaatay inkastoo waqtigan hadda la joogo ay jiraan rag badan oo iraba ina jecel laakiin aniga ayaan nafsad u haynin oo aan ku qanacsanayn jacaylkooda waayo noloshii hore ayaa igu qufulan weli abaayo Suleekho qisadayda intaa ayaan ku soo koobayaa insha Allah adiga iyo dadka dhageysan doona kilibkan waxaan idinka rajeynayaa talo wanaagsan fikirkiina waa loo baahan yahay Suleekho waad mahadsan tahay walaal nagu qaaliya ayaa tahay taladaadana waan u baahanahay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء سوماليات سلامتا وان كقاضي مid lamidana waan ku salaamaya runaantii aad iyo aad baan uga xumahay tijaabooyinka mustaqbalkaaga nololeed ee aad samaysay inaad ku guul dareysato laakiin waxaan dhihi karaa ama xaqiiqo ah guul darradu maaha intaad wax tijaabiso inaad ku guul dareysato laakiin waxa guul darro ah inaad ka rajo dhigto isku dayga mustaqbalkaaga nololeed noloshu maaha wax hal mar laba mar ama saddex mar inta la tijaabiyo hadana laga rajo dhigo nolosha adduunka ma jiro qof aan soo kaca kufin ninka lagu magacaabo Thomas waxa uu isku dayay inuu leer ka sameeyo 1000 jeer 999 mar ayuu ku guul dareystay markii kumaad ayuuna ku guuleystay u fiirso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya dhamaantiin waa sheeko cusub oo kamid ah barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee qisooyinka ay inoo soo dirayeen dadka talooyinka na soo weydiista waxaan u mahadcelinayaa dadka nala wadaagaya qisooyinka ay noloshooda ka soo wajaheen waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka aqalka u saaxiibka ah ee talooyinkooda ugu deeqa dadka u baahan talada dadkuna waa isku wada baahan yahay ma jiro qof kaligiis isku filan qof kastaaba waa u baahan yahay talo iyo tusaale sheekadan waxa ay soo dirtay gabadh Soomaaliyeed waxaana ay ku bilaabanaysaa sida tan Abay Suleekho mar rabo inaan magacayga sheego balse waxaan rabaa inaan qisadayda idin la wadaago adiga iyo asxaabta page-kan ku xidhan waxayna qisadu u dhacday sida tan aniga oo yar oo dhigta dugsiga dhexe oo markaa aan wax nina la sheekaysan jirin shukaansina aqoon ahaydna markii iigu horeysay ee aan gabadhnimadayda dareemay oo wixii ka horeeyay dadba isuma qabin oo waan yaraa oo markaan uun baan dareemay laakiin weli nin ma baran waxa dhacday inaan habeenada kamid ah aan u wareegay xaafad dariskayga ah oo aan gabdhahooda saaxiibnahay daris isku fiican ahayn markii aan ka soo noqday xaafadii ayaa waxa iga daba yimid wiilkooda waa habeenkii iigu horeysay ee aan wiil la istaago ama barto wiilkii intaanan xaafadayda gaadhin ayuu ila hadlay wuxuuna iga codsaday inaan istaago oo aan la hadlo waana istaagay oo waan la hadlay aniga oo aad u cabsanaya oo ka yaaban inay waalidka ii arkaan balse waanu istaagay oo waan wada hadalnay wuxuu ii sheegay inuu aad ii jecel yahay isku dugsina dhigano ilaa iyo maalintii uu ii arkay oo uu igu arkay iskuulka iyo xaafadda uu ii jeclaaday saaidna ii jecel yahay rabana inaan wax la qabto waan ka yeelay oo waan ka aqbalay wiilkii in badan ayaan isla soconay faamilkaygu ma oga inaan nin la sheekaysto oo jeclaaday xaafadda wiilka ayaan maalintii oo dhan joogi jirnay oo marka uu gobolku dhaco ayaan tagi jiray xaafadayda wiilku igama shakin jirin oo waxa ay moodi jireen inaan cashar wada akhrisanayno oo waxba ma aysan nooga shaki qabin
maadaama ay xaafadu ahayd xaafad aan isku fiicnayn aadna isugu wareegno gabdhahooda saaxiibana nahay waxa aan wiilka wada soconaba waxaan maraynaa high school waxaa dhacday inuu habeen gurigayaga yimid annaga oo isla fadhina bannaanka ayaa waxaa soo galay aabbahay aad ayaan u naxnay aniga iyo wiilkii aabbahay waa uu xanaaqay oo wuu canaantay wiilkii wuxuuna ku yidhi gurigayga ma imaan kartid kugumana arki karo gabadhayda habeenkaas oohin ayaan ku dhammaystay weliba waalidkay sidaa kagama hadhin wiilkii intay waalidkii dhalay u tageen ayay ku dhaheen naga ceshada wiilkiina beriga waxa ay waalidkay lumiyeen hamigaygii iyo himiladaydii laakiinse saa kagama hadhin wiilkii aan jeclaa ee waan sii wadanay xiriirkayagii waxaan saa ahaanaba wiilkii waa uu isbedelay faamilkiisuna waxay u qalqaaliyeen gabadh inaabtidiisa oo joogta dibidda waxa uuna iga codsaday inaan kala hadhno aniga aad ayaan uga xumaaday una niyad jabay magaaladii ayaan nacay waan ka soo tegay magaaladii oo waxaan imid magaalo kale oo waxay waalidkay moodayaan inaan jaamacad soo aaday magaaladii markaan bilo joogay ayaan maalin isbaranay wiil da'yar oo aad u qurux badan inaan xiriir la sameeyo ayuu iga codsaday oo aanan aqoon ruuxa leh mise waa isagii waxaan ku yiri xageed joogtaa oo yaa nambarkayga ku siiyay wuxuu igu jawaabay wadan dariskaaga ah ayaan joogaa dartaa ayaana u imid anigu berigii kuma khiyaami rabin ee arrin ayaa jirtay haddana aan isku soo laabano oo aan wixii hore ilowno waxaan ugu jawaabay wax walba oo ani xaggayga aan ku qabay waan ka cafiyay balse lagama yaabo inaan dib isugu soo laabano haye ayuu igu yiri 2015 ayaa waxaan bartay wiil aan isku magaalo ka nimid ehelna nahay Facebook ayaan iska baranay waxa uu iga codsaday inaan xiriir wada sameeyno waana ka aqbalay wiilku waa wiil naaga badan waxaan ku yiri walaal hadaad qof kale la sheekaysato ii sheeg ha ilugeyn wuxuu igu jawaabay asxaab ayaan nahay ee waxaan la sheekaysto ma jiraan waan aaminay waana ku kalsoonaaday jacayl saa'idaana waan u qaaday waxa uu sheegay inuu aniga mooyee aanu naag kale rabin wuxuuna iga ballan qaaday inuusan weligii qof kale igu doorsanaynin anigii waan aaminay daacadna waan u ahaa jacaylkayga balse wax yar kadib waxaan ku arkay dabeecad kale wiilkii inaanu dan iyo muraad iga lahayn inuusan isoo wicin waan fahmi waayay waxaan ku iri dabeecadan ma aniga ayaad igula dhaqmaysaa mise dadkoo dhan ayaad ku tahay wuxuu igu jawaabay waa dabeecadayda anigii waan jilcay oo wadnahaygii ayaa banaanka jooga oo hadal xun hadduu idhaho meel ayaa igu aysa anigoo arka haddii aan dhaho maxay tahay sidani waxa uu igu jawaabayaa haddaad ku qanacsanayn aan kala tagno inuu wado walba u maray sidii aan uga hadhi lahaa waana ka hadhay hadda inkastoo aan xanuun badan murugo qalbi jab aad u weyn maray alxamdulillah aan ka aqbalay aniga oo weli dareemaya niyad jabkii sidii waxaan ahaanaba maalin ayaan suuqa iskaga soo horbaxnay wiilkii hore ee aan jeclaa aad ayuu ugu farxay wuxuuna ii sheegay inuu jeclaa inaan maris aragno ma kula hadli karaa ayuu igu yiri haa ayaan iri waana wada hadalnay waxa uu ii sheegay inuu laynkii loo xireeyay ee ay u xiraysay gabadhii lagu daray uu ka gubtay gabadhiina uu ka noqday inaan cafiyana uu rabo waxa kale uu iga codsaday inaan xiriirkeennii soo celiyo aniga markaa waan ka naxay runtii waana cafiyay laakiin waxaan ku yiri xiriirkeennii inuu soo noqdo lagama yaabo runtii isagoo aad uga xun ayaan ismacasalaameynay markaana wiil kale ayaan la sheekaystaa oo ma rabin inaan khiyaamo wiilkan mana jecli inaan khiyaamo qof jecel balse khiyaamaduba aniga ayay ugu socotay ninka aan la sheekaysanayo wuxuuba ahaa mid raba inuu dabin igu rido oo jacayl beena ayuu ila galay aniguna wallahi daacad ayaan u jeclaa oo xitaa ma ihi gabdhaha iyaga oo qof la sheekaysta haddana niman kale la sheekaysta weligayna qof ma khiyaamin oo sidii isaga oo iqaba ayaa nimanka kale inaan la sheekaysto aanan jeclaan jirin waxa dhacday inuu xiriirkii ii gooyay ninkii labaad ee aan jeclaaday anigii waan waalan gaadhay wado walba waan isku dayay wax walba waan ku fikiray ugu dambeyntii waxaan ku fikiray inaan ka tago wadankaba waan ka soo tagay waxaan imaaday Yurub wadan kamid ah markaa ayay niyadaydii caadi noqotay wax yar markaan joogay oo aanan wali nin kale baran ayaa waxa yimid ninkii dambe ee aan wadankaba uga soo tagay habeen ayuu isoo wacay number wadan Yurub kamid ah